السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خياري ميل كستوات شوتان كسو دوادة برنامج كعيارها لو أني كستوات كلا سعوتان بارتينا يوتيوب كعيارها لا تيستيوب كسو دوادة مقال كان عصب مانتا ود ايجدونا ورك ودن بسبورتيga سيبا وحان ايجدونا هوريالada kala duwan ee qaaradaha Yurub oo la filayo maanta in la ciyaaro واو waxaa jira kulamo muhiim ah siba agayo Premier League aad moodayna jiraan kulamo aad u xiiso leh kooxaha weyn qaarkooda oo sahlali doono waana kula runtii darbiya ee waxaan soo kale eegi doonaa horyaalka dalkaasi ee Talyaaniga ee sereaA iyo waliba dabcan budesliga Jarmalka ayaan sidoo kale eegi doonaa waxaan ka marneen horyaalka dalka Faransiiska ee lig1ka ayaan soo kale falaqeyn doonaa aanu eegi doonaa rajada kooxda PSG awlada inay ku guuleystaan markale horyaalka dalkaasi ee lig1ka أنا عصوبة سبسكرايب نوصل هذا نجا متنا لايك نودي رجلي سوين هلا ساعة وأنا أحسن سيدا ذو كلاتيا أهلا وسهلا كسر هذا البرنامج كنا أو في سنة أخيرا إيميل كستوات شوكتان مالو وأنا أحسن هديان كوبلا إنه هريالك دلك إنجليزك أحنا كانوا وحنا مصدر بدن وقولنا الدعوة شد بدن أياد موجة إنه أجدونه كودا كوبلا عكتيا مان سيتي يا وحي صودون دونان كودا تشيلسيا كودا مان سيتي يا كودا دفاعنا هريالك دلك سي EPL يجو إيميكا وكوه جامنايا إلا يتون بحد كلانكيا مانتا وانا كلانك هوري لا فيلا إلا عيارو هوريالكاسي ساعدو markay tahay 3 daqiiqo qadar 15 daqiiqo oo galabnimo ayaa kulankaasi dhex doono ciyaartaasi ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka weyn ay leedahay naadiga Man City ee Etihad Stadium waana kulan derby waana kulan looga fadhiyo inay buroga u qabtaan naadiga Man City ee kooxda Chelsea aad moodaa inay tahay koox la filayn oo u tartamto horyaalka Premier League inkastoo ognay in iminkaad moodaa in kooxda kubadda cagta ee City ay dheereysatay عجيا كلا هرينتي أما فرق وده حلا بدك عود أيه تون دبعود وأنا رنتي دبعود وبدن وحنا ترى فرصة أهيسة كودا تشيلسي مانتا إن يسوتشرتو كاسو هدي كبد سوناديا مان سيتي أي سيتي نكاد دبحاي وهرين كرتو تدو دبعود هاسياتي هدي لجبديو ناديا تشيلسي هذا مودين رجدوا ذا أما رجدا يقولين هريالك بريمير ليج ديكرو ومن رنتي أمرنا بالله صدالين كرين تأبرا كودا سي بيب جوديولا لهارو جيس كودا بولدايا شيء إن كودا سيديارو تي كلان كمانتيا أهنا كلان لفيليا إن كوح كستي دونسو إنا هيلان دبعو وأنا كلان مهمة كودا كودا عيتيا مان سيتي سأود دفاعته هريالك دالكاسي EPL كيا وحنا تشرا كلان موين كلو دورة لفيلين لعيارو مانتي كوترسون EPL كيا كودا نيوكاسل يونايتد وحي قابل دونتيا ناديغا واتفورد sidoo kale tii naadiga Norwich ayaa waxay soo dhawaan doonaan Everton halka Wolves ay qaabili doonto naadiga Southampton kulamo kale oo muhiim ah jira inkastoo in kulanka u dhaxeeyo naadiga Burnley iyo Leicester la paajay xaaladaha jira awgeeda siba cudurka halista COVID-19 aad mooday inuu sabwa in la paajiyo kulankaasi ee Burnley iyo Leicester dhanka kale hadii aan dib ugu soo laabano naadiga Man City ama caga kala horeynta miiska hadii aan kooxda City ay hogaaminayso iyagoo leh 53 dhibcood kooxda Chelsea ku jirto kaalinta labaad waxay leeyihiin 43 halka kooxda Liverpool ay leedahay 42 dhibcood kulanka kale kulanka derbiga kulanka oo muhiimka ah naadiga Man City iyo tababarada Ralph Rangnick ayaa kulanka United la ciyaari doonto naadiga Aston Villa kulanka ugu dambeeyay labada kooxood ciyaareen United ayaa hali ever u badisay waxaana goolkaasi dhaliyay ciyaaryahan McTominay caawsay kulankani uu ka maqaya cagayo dhaawac waxa soo kale tahay Man United ay wayn doonaan ciyaaryahan Antonio Martial, Luke Shaw, Paul Pogba iyo liba ciyaaryahan Dalot ayaa soo kale tahay ay wayn doonaan naadiga Manchester United waana kulan looga fadhiyo inay badiyaan naadiga Man United hadii ay badoonayaan inay ku dhameystaan afarta sare dhanka kale kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa waxa kulanka Maanta la filayn la ciyaaryahan Philip Coutinho laacibka naadiga Barcelona ay kooxda Aston Villa si ahma ugu soo qaateen soo kale ciyaaryahan Digne ayaa la filayn kulanka Maanta oo qayb ka noqon doono Aston Villa ayaa muddo kulanka ugu dambeeyay inay aad u si wanaagsan u ciyaareen aad mooday United hay dhaheen runtii Aston Villa waa ku aan caadiyeen waxaana maamula laacib Korea naadiga Liverpool Steven Ciyaaraha agayo serea'a Talyaaniga hadii aanu eegno waxaa jiro runtii kulamooyin muhiim ah oo la filay maanta in la ciyaaro inkastoo inay kooxda kubadda cagta Juventus xaaladooda ay tahay runtii mid aan aad u wanaagsaneen
kulamada kale inta la gaaray Juventus diyaanayno Sampdoria ayaa waxay wajahi doonaan naadiga Torino shanta galabno halka naadiga Salernitana ay soo dhaweyn doonaan naadiga Lazio 8 fiidnimo kulanka kale ay doonaan ma falaqayn doono waa kulanka ay kooxda Juventus ay soo dhaweyn doonto naadiga Indonesia وانا كل runtii muhiim waa naadiga Juventus inay badiso Juventus ayaa mooday iminka caga kala horeynta ay ku jirto kaalinta shanaad iyagoo leh 38 dhibcood waxaana hogaankii haya kooxda Inter oo leh 49 AC Milan oo ku jirto kaalinta labaad waxay leedahay 48 dhibcood halka Napoli ay ku jirto kaalinta saddexaad ay leedahay 43 dhibcood Atalanta ku jirto kaalinta afraad waxay leedahay 41 dhibcood kooxda Juventus kulanka caawa kulanka dorbiga ila ciyaari doonto naadiga Indonesia ay wax ku qasbayeen inay ka badiyaan tababaraha kooxdaasi Algeria la hadla wargeyska la yiraahdo Italian Sports ayaa sheegay in kooxdiisa kulanka caawa ku qasbantay inay ka badiso naadiga Indonesia inkastoo aan inta badan la saadaalin karin kubadda cagta tababarahan ayaa mooday inay tababareen qabiil runtii kula guuleystay kooxda Juventus 8 koob oo kamid serea'a tadka Talyaaniga oo runtii aan mooday inay tahay mid conservative isku xigto kulanka caawa waa kulanka rajada kooxda Juventus soo celin karo iyagoo inta badan la dhihi karo Juventus hadii caawa badiyaan waxa macquul in ku dhameysan karaan kaalintii afraad saddexaad labaad inkastoo la dhihi karin hadda way ku guuleysan karaan horyaalka dalkaas inkastoo kubadda cagta aan la saadaalin karin agayo Jarmalka siiba budesliga ayaanu eegi doonaa waxa jiro maanta ila ciyaaro dhowr kulan oo muhiim ah kooxda kubadda cagta Bayern ayaa marti noqon doonto naadiga Köln waana kulan muhiim ay ku qasbantay naadiga Bayern inay badiyaan hadii ay doonayeen inay difaacadaan horyaalka dalkaasi budesliga saacada markay tahay 5:30 daqiiqo kulankaasi dhex doono kulanka ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Bayern ayaa waxa ka badisay naadiga Magdeburg kulanka Maanta waa kulan kale oo muhiim ah kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa moodaa inay tahay kooxda ku jirta kaalinta labaad waana kooxda inta badan la tartamta naadiga Bayern Munich kulamada kale hadii aan eegno naadiga Mainz ayaa waxay qaabili doontaan Bochum halka Stuttgart ay soo dhaweyn doonto naadiga Leipzig Wolfsburg ayaa la ciyaari doonto Hertha Berlin halka kulanka kale derbigu yahay kulanka u dhacayo naadiga Mönchengladbach iyo waliba Bayer Leverkusen agayo lig1 Faransiiska ayaanu eegaynaa iminka waxa jiro runtii kulamo dhowr la filayo in la ciyaaro kooxda kubadda cagta Saint-Etienne ayaa qaabili doonto Lens 7 fiidnimo halka PSG ay soo dhaweyn doonto naadiga Brest ayaa mooday in kulamada ugu dambeeyo siba shanta saddex kamid ay badisay labana ay galeen Brajo halka kooxda PSG shanta ugu dambeeyo kulamada horyaalka dalkaasi afar kamid ay galeen Brajo runtii waxaan moodaa in yahay kulankii caawa kulan kale oo derbiya kulan muhiim ah inkastoo ay weli kooxda PSG hogaaminayso horyaalka dalkaasi iyagoo ku hogaaminaya 47 dhibcood kooxda Nice oo ku jirto kaalinta labaad waxa ay leedahay 39 dhibcood halka kooxda Marseille ay ku jirto kaalinta saddexaad ay leeyihiin 36 dhibcood Rennes oo ku jirto kaalinta afraad waxa ay leedahay 31 dhibcood ciyaaryahan Lionel Messi ayaa kulankii caawa seegi doono waxaana weli dhaawacaysa oo yahay mid uusan weli ka soo kabanin kulanka caawa soo kaleetay uu seegi doona tababaraha kooxdaasi Pochettino ayaa wax lagu weydiiyay xaaladda ciyaaryahan Lionel Messi wuxuuna sheegay in Messi uu dhaawacay balse dhaawaciisu aad moodaa iminka inuu yahay mid uu ka sii wanaagsanayo kulamada dambe ee kooxda kubadda cagta PSG ciyaari doonto la filayay waxa soo kooxda la weydiiyay ka oran kulanka Champions League ee Real Madrid ciyaaryahan Lionel Messi rajam u leeyahay inuu ciyaaro dabcan wuu ciyaari karaa waana kulan muhiim ah runtii dhaawaciisa maaha mid iminka xaalisa una ka soo laaban doona marrow sportiga khiyaaray waa naga inta aadayada u maqsantiin waqtigiina bye bye